Gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan ee Hirshabelle Mudane Cali Maxamed Caraale oo shir jaraa'id maanta warbaahinta ugu qabtay xafiiskiisa ayaa ka tacsiyeeyay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee maanta ka dhacay isgoyska Ex-Control Afgooye ee magaalada Muqdisho halkaa oo ay ku dhinteen tiro badan oo dad shacab Soomaaliyeed ah. Gudoomiyaha ayaa tacsi u diray eheladii ku waayay qaraabadooda weerarkaasi waxa uuna dhanka kale ugu baaqay shacabka Muqdisho inay la shaqeeyaan dowladda Soomaaliya iyo ciidanka amniga si hal goob ah looga soo wada jeesto dadka amniga liddiga ku ah ee dhibaatooyinka ku haya shacabka Soomaaliyeed. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Ilaahay ha naxariisto intii maanta ku nafwaysay qaraxii furiinimada ahaa ee ka dhacay Ex-Control Afgooye intii ku dhimatay sabar iyo imaan Allah naga siiyo ayagana jannadii firdawsaha Allah ka waraabiyo inta dhaawacana Allah caafiyo Ilaahay ma aragtay ha bogsiyo dadka Soomaaliyeedna sabar iyo imaan Allah ka siiyo dhammaan inta maanta meesha ku geeriyotay inta ku dhaawacantay waxaan nacasnimo ah oo xooshnimo ah muddo ka badan 10 sano in dadka Soomaaliyeed oo ku socdo qaraxyo aan loo meelday oo ay sameynayaan dad Soomaali ah oo dhahaya waxaan nahay Soomaali waa nacasnimo waa doqonnimo waa waxooshnimo Ilaahay baa ku dhaariyay suurtagal ma 10 sano inaan fahmi wayno meesha nala ka jiro suurtagal ma 10 sano in carruurteennii iyo haweenkeennii iyo waayeeladeennii iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed in lagu hayo gumaad cidnaga akhrisanaysa ma jirto qofka ibn aadanka sanad waa khaldami karaa bil waa khaldami karaa maalmo waa khaldami karaa saacado waa khaldami karaa laakiin 10 sano ma aqaano cidii dilaysa 10 sano ma fahamsani xagga weerarku ka socdo 10 sano ma garan karo wax ay dilayaan wax noo shaqeynaya ma waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed arrimahan waa in si aad iyo aad looga digtoonaada waa in aad iyo aad looga fikiraa gaar ahaan dadka degan Muqdisho ceeb ayay ku tahay in maalin kasta qarax uu ku dhaco magaalada Muqdisho oo dadka Soomaaliyeed si sharci darro ah dhiigooda lagu xalaaleysanayo dawlad kaliya wax ma qaban karto haddii aan shacabka la shaqeyn ciidamada booliiska iyo ciidamada amniga kaligood lama dagaalami karaan argagixisada rabaan dadka Soomaaliyeed inay dhameeyaan waa in la shaqeeyaa dhammaan ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidamada ku howlan xasilinta iyo amniga magaalada Muqdisho waxaan leeyahay shacbiga degan dadka Muqdisho ma waxaad doorateen in carruurtiina subax iskool aad u dirsataan maalmihiina wadooyinka la waro oo lagu baabi'iyo ma waxaad go'aansateen argagixisada inaad gabadh u noqotaan ma waxaad go'aansateen argagixisada inaad hooy u noqotaan oo aad qarisaan oo aynan soo sheegin waxaad ogaataa ninkii qariyow ninkaasi ninkuu dilaayo ama waa hooyada ama waa aabaha ama waa canugaadi sidaa darteed waxaa la rabaa damiirka inuu shaqeeyo oo qof Soomaali ah aanu ogolaanin qof kale oo Soomaali ah walaalkiisa in la qarxiyo damiirlayaasha ku shaqeynaya dhaqanka noocaas oo kale ah waxaa la rabaa dhammaan in laga soo wada horjeesto waxaa la rabaa isku meel in laga wada istaago waxaa la rabaa kulli in laga wada hortago shacab iyo dawlad dhammaanteed anugu kuma eedeynaayo qaraxyada dhaca inay maxaan ku raahdaa mas'uuliyaddeeda inay leeyihiin oo kaliya ciidamada dawladda iyo maxaan ku raahdaa dawladda Soomaaliyeed iyo dawlad maxaan ku raahdaa iyo maamulka gobolka Banaadir waxaan leeyahay dhammaan waxaan ku wada eedeynayaa qof kasta oo degan magaalada Muqdisho iyo qof kasta oo Soomaali ah oo degan meelaha uu qaraxyadu ka dhacayo waxaan ammaan iyo hambali u soo jeedinaa iyo sharaf iyo ciise iyo karaamo dadka degan meelaha Soomaalida ah oo aanay ka jirin argagixisada iyo maxaan ku raahdaa iyo qaraxyada maxaa yeelay dadkaasi waxa ay diideen inay gabaad u noqdaan argagixisada waxay diideen inay qariyaan oo ay la shaqeeyaan argagixisada iyo dadkooda laaya marka dadkaasna waxay mudan yihiin sharaf iyo amaan waxaan ku sii bogaadinaa inay maxaan ku raahdaa amaankooda ay si ilaashadaan oo ay la shaqeeyaan ciidamada la howlgala deegaanadaas aad iyo aad u mahadsantahay Maxamed Ibraahim Siyaad telefishinka caalamiga ah ee Kalsan Beledweyne.